بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. waxaan maanta ilaahay idankii soo dhawaynaynaa ramadaankii oo nagu soo fool leh. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu. qofkii ilaah rumeeyey qiyaamahana rumeeyey waxa weeyaan waa labada arkaanu iimaanka ugu waaweyn. waxa weeyaan iimaanu billahi walyawmi alaakhir waa labada arkaanu iimaanka ugu waaweyn, maxaa yeelay wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusuli. inta kale waxa weeyaan waxaa ka labadaasaa ka weyn. labadaa qofkii rumeeyey inta kaleo dhan waa rumeeyey, maxaa yeelay waa labada ugu waaweyn. oo qofku hadduu ilaahay rumeeyey qiyaamahana rumeeyey, inta kale waxa weeyaan waa in adduunka iyo wax lagu arkay, laakiin waxa weeyaan aakhira lama arag. waxa jira siraadka jira, xisaabta jirta, cadaabka, jannada, waxaasoo dhan wax la arkay ma ahan. marka waxa weeyaan qofkii rumeeyey waa qof iimaankiisu u buuxo weeyaan, oo iimaan xoog leh haysta, oo iimaan weyn leh. qofka rumeeyey qiyaamaha rumeeyey, qofka haddii ilaahay rumeeyey oo qeybku rumeeyo asagoo ka maqan oo sanadka rumeeyeyna waxa weeyaan midka ugu weyn haddii ilaahay ku abuuray oo ku khalqay oo ku irsaaqa oo asagu ku leh oo ku maamula. marka aad rumayso waxa weeyaan waa waxa ugu weyn oo masalanba bini aadamku ay masalanba rumeeyaan oo ugu weyn weeyaan. maxaa yeelay meeshaad ka timid iyo sidaad lagu abuuray iyo waxaasoo dhan ayaad masalanba ku ogaanaysaa. marka waxa weeyaan labadaa qofkii rumeeyey soo dhaweeye buu yidhi oo ha ikraamo qofka dayfkiisa martigiisa ha ikraamo ha karaameeyo. waxa weeyaan marti aad iyo aad u weyn oo u sharaf badan ayaa nagu soo socda. waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam asxaabta ayuu u bishaarayn jiray oo wuxuu odhan jiray adallakum shahru ramadaan shahrun awaluhu raxma wa awsaduhu maqfira wa aakhiruhu cutqun min annaar. waxaa idinku soo fool leh oo idin hareeyey oo idin yimid, waxaa idin yimid buu odhan jira shahri mubaaraka oo aad iyo aad u karaamaysan oo u barako badan oo u khayr badan. shahrun awaluhu raxma buu odhan jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam. awalkiisu waa raxmad weeyaan, bini aadamkaa isu naxariistan. ilaahay baa ummadiisa oo dhan u naxariisanaya oo raxmad u soo dejinaya. qofku hadduu gaajo ka baqayey, hadduu haraad ka baqayey, hadduu ciqaab iyo masalanba amni darre ka baqayey, bishaas waa bil shahru lamni, waa shahru raxma, waa shahru baraka. waxaasoo dhan ayay la imanaysaa. marka waxa weeyaan awaluhu baraka raxma buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. awalkeedu waa naxariis buu yidhi oo ummadda ilaahay oo dhan baa loo naxariisanaya. waxa weeyaan wa awsaduhu maqfira, wasadkeeduna waxa weeyaan waa dembi dhaaf. oo mar haddii masalanba 15 la dhaafo ilaa masalanba 20 waxa weeyaan waxay noqonaysaa iyaduna 10 dambe ilaa 20 waxa weeyaan waa dembi dhaaf. oo in alla intii soomanayd iyo intii wax afurisay iyo intii salaad tukatay iyo intii cibaadaysatay bisha ramadaan ayaa dembigoodii la dhaafayaa. mar haddii dembigaaga la dhaafo waxa weeyaan ahlu janno ayaa tahay. waxa weeyaan qofku wuxuu naar ku aadaa, dembi buu ku aadaa. dembiga haddii lagu dhaafo ilaahay dembigaagii uu dhaafo ahlu janno ayaa tahay. oo waxa weeyaan waa sidaasa masalan baladu dembi dhaafka ka horeeya. qof aan loo dembi dhaafina jannada ma galo. rasuul masalan ilaahay baa wuxuu leeyahay wasaaricu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin cardaha asamaawaatu wal-ard uciddat lilmuttaqiin. u kala tartama, u kala dheereeya janno ballarkeedu masalanba janno dembi dhaaf ilaahay dembi dhaaf la weydiisto iyo janno ballarkeedu cir iyo dhul iyo intoo la isku dara ka wen yahay. u kala dheereeya buu rasuulku ilaahay leeyahay, ilaahayna leeyahay. waxaa jannada ayaa loo diyaariyey uciddat lilmuttaqiin, dadka ilaahay ka baqa oo amarkiisa fuliya, xumaantii wixii xumo uu reebana ka hara, dadkaas ayaa loo diyaariyay. taqi waxa weeyaan wixii amarka ilaah fuliya, wixii xunna ka raba ayaa la yidhaha taqi la yidhaahdaa.
marka taqigu waxa weeyaan waa min awliyaa ilaahi waa dadka awliyada ilaahay ah oo ilaahay maamulo oo ilaahay jecel yahay oo raalli ka yahay oo jannada gelinhayo oo ilaah leeyahay alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum albushra fi lxayaati addunya wa fi alaakhira walakum fiiha ma tashtahi anfusukum walakum fiiha ma tadcuun nuzulan min gafuurin raxiim dadka ilaahay sidaa leeyahay ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يعني وحويان وادتك أولياء إلهي وإلهي جعليهي وإلهي رالكيهي وإلهي أمامرو وأسوق عنك كوايو وادتك إلهي القرآن كيس كشيغي وادتك أولياء إلهي وادتك إلهي كبغا مثل الذين آمنوا وكانوا يتقون وادتك إلهي رميي كان بغو إلهي كبغا وحمانتي وحي ريبنا كهرة وحي فرنا لي ماذا دتك وياه marka dadkaas masalan waa loo dambi dhaafi oo bisha ramadaan ba masalan dhexdeeda ayaa loogu dambi dhaafi awwaluhu rahma wa awsaduhu maghfira wa aakhiruhu utqun min an-nar bi rasuulku alayhi salatu wa salam aakhirkeeduna waa naarta oo la iska xoreeyo hadda maxaa ka weyn hadii mar naarta laga xoreeyo oo ilaahay ku xoreeyo oo dambigaaga dhaafo oo aan wax lagu haysta aysan jirin waxa weeyaan jannada udkhuluha bisalaam weeyaan jannada nabadgeliyo ku gaar xisaab la'aan iyo cadaab la'aan gala weeyaan mar hadii lagu dambi dhaafo laguna xoreeyo aad ka xorowdin naar qortaada laga xoreeyo waa jannada samad dambi dhaaf iyo bisalaam bas xisaab la'aan iyo ku gala weeyaan cadaab la'aan ku gala marka jannadaas baan doonaynaa ilaahay idankii إلهي إنه نجليه إلهي إنه نوكل ميو على سرر متقابلين إلهي إنه نوكل ميو بيش مسلم بيش واسدا بيش أحسن إنه بسوا فول لبورج الرسول عليه الصلاة والسلام وترحيبا مرحبا 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 يا رمضان سيدا سنورنجري وسود وين هيو وحويا فضل جيدا يا ولا جيدا لسوشيجي فضل جيدا لما تريكه محاضرين كدام بقى إن شاء الله ويا كل شيء قدونا وحلا وجه فضل جيد وياي وحلا مثلا بخير كأيلاد هي ولا جيدا وكهد الدونا ولا جهد الدونا محاضرين كدام بشعر ودن إلهي إذنك وحنا نص عنا يسا محاضرين بنص عنا يا ما أحد هاي تفسير كي هدو جوك سدي محاضرين بصعون دونا وإن سيدي الله سعمره هي سكندرا ولقاتم مثلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وإن زاد لقاته وحلقاتنا تقوى إلهي إله كعبسي أيهوي وحلقاته وزاد لقاته إله كعبسي أيهوي وتقوى أيهوي حيالي إله كعبسي آخرنا وقول راعيا أدون كان وقول إلهين هيا أو مقرجريا لكن هدي آد مثلا بأدون كعنتين أو عبتين أو مقرنسا وحد دون تآد سميسين أو آخرنا النار أي كوضا بيسو وإله لي هاي مثلا بقول أهل النار قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار راح يستاهل لي عابق وعنق وعابق والزنيست وواحد دون تآد سمايا فإن مسيركم إلى النار ماشي أتجد دون تآد النار توهي لي أهل النار marka waxa weeyaan taqwada qofka muntaqiga ah ayaa ilaahay wuxuu ka ilaalinaya naarta haduu zaad qaato oo salaad qaato oo soom qaato oo xaj qaato oo umra qaato oo cibaado qaato sidqi iyo wax wanaagsan uu qaato oo dariska hagaajiyo oo birrul waalideenka uu naxariisto waxa weeyaan tasawwadu fa inna khayra zaadi taqwa taqwadaas ayaa wax zaad loo qaato oo qabriga loo qaato oo aakhira loo qaato taqwada ayaa u weyn مثلا بتاسع أو خير بدن بس مثلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني إلهي واتقوني أنا إجابة أو كريه أمر كي فولية بحال وحن إذا كره أبو حمان أنا كهرة يا أولي الألباب وحلا لحد يا ضدك عقل قال ما عندك مغفلين أو ضد عن عقل لهاي أو قبيين هي مجانين هي لحد لما وحلا لحد يا ضدك أهل عقل قال أو عقل قال لا عند إله مركل يا أولي الألباب يا أصحاب العقول مركل اللي هي وضدك عقل قال لا حد ليا مركل ضدك عصو أنا جايبقى بوليا فإياي فرهبون فإياي فاتقون أنا كليه ونجبقى أنا كليه إجا عبسدا إتكله حكبق إننا جني إيه مثلا الشيطان هي بلايا كله أنا جاي عندي كإلهين هيو إله ليا مركل وحويان بشهر رمضان من بجرا ورسول كير أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره من عتق من النار رسول كان عليه الصلاة والسلام
maalin maalmaha ka mid ah ayuu mimbarka fuulay. Mimbarku waxa weeye waad aragteen saddex wuxuu leeyahay jarac, saddex buu leeyahay isteeb buu leeyahay, saddex tallaabo ayaa la tallaabsadaa. saddexdaa tallaabo ayuu rasuulku tallaabsaday. markii ugu horreysay ayuu wuxuu yidhi aamiin, midii labaad buu yidhi misana aamiin, midii saddexaad buu yidhi aamiin. rasuulku mimbarkiisuu iska fuulay, khudbadiisuu akhriyey. markii uu musalama khudbadiisii iyo wacdigiisii u dhammeeyey ayuu markuu soo degay oo uu dadkii u yimid ayaa la yidhi rasuulkii ilaahayow markaad mimbarka sii fuulaysay waxaad tidhi saddex jeer baa tidhi aamiin 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 tiriye maxaad odhanayso aamiin yaa ducaynayay adiguse maxaad aamiin lahayd? wuxuu yidhi malaku jibriil baa ii yimid. malaku jibriil baa wuxuu yidhi adiguna aamiin dheh, aniguna ilaahay baa wax weydiinaya. waayo bisada malaku jibriil soo ma ahan malakul wahyi ma ahan, ma meel kalu ka socdaa. laa yantiqu cani ilhawa, rasuulkuna waxa weeye rasuulkii ilaahay laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. wax alla wixii loo sheegaa waa waxyi, meel kale wax ugama yimaadaan. malaku jibriilna hadda waxaa masala laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. waa malakul wahyi oo waxyigii iyo qur-aankii loo aaminay inuu nebi maxamed qalbigiisa ku shubo loo aaminay. marka waxa masalada ducaynaya waa malaku jibriil, waxa aamiin lihina waxa weeyaan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ducadaasu miyay ah tahay duco baaqanaysa? ducadaasu miyay tahay duco baaqanaysa? waa duco masalanba mustajaaba ah oo aan marna baaqanaynin oo aan marna meel kaa maraynin weeyaan. maxaa yeelay waa duco masalanba ilaahay nebi maxamed u duceeyey malaku jibriil, nebi maxamedna aamiin yidhi. marka ilaahay xaggiisa ayay ka timid oo waa waxa weeyaan waa waxyi ilaahiya oo ilaah uu soo dejiye weeyaan. marka maxaad u ducaysay baa muxuu ku duceeyey? maxaadse aamiin lahayd baa la yidhi. wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil baa ii yimid, aamiin dheh buu yidhi, aniguna aamiin baan idhi. marka wuxuu yidhi rasuul malaku jibriil baa duceeyey. wuxuu yidhi man adraka ramadaan walam yukfar lahu abcadahu allahu fi nnaar waadkhalahu allahu fi nnaar waabcadahu. qofkii masalanba u yimaado ramadaan u soo galo oo bisha ramadaan ay u soo gasho oo bishaa ramadaan aan loo dembi dhaafin, awaluhu raxma wa awsaduhu maqfira. u fiirso yani xadiiskii iyo kanaa ishaleeshan, qofka aan loo dembi dhaafin bishaa oo aan dembi dhaaf ilaahay uusan u dembi dhaafin oo bishaas sababteed aan loogu dembi dhaafin, ilaahay naarta ha ku fogeeya buu yidhi, hana geliyo. aamiin baan idhi buu yidhi. ducadaasu ma socotay mase ma socon? yaa ducadaasu ma socotay? waxa weeyaan aamiin baan idhi buu yidhi. marka malaku jibriil wuxuu sii waday, ducadii buu sii waday oo wuxuu yidhi man adraka abawayhi aw axaduhuma, ninkii qofkii waalidkii soo gaara ama masalanba mid ka mida soo gaara oo aan sababtood janno ku gelin, ilaahay naarta ha geliyo hana ku fogeeyo. waalidkii dhalay oo masalanba waalidku ilaahay markuu qur-aanka masalanba ka hadlayo wuxuu isku xijiyaa daa'iman cibaadadiisa iyo birul waalidayn buu isku xijiyaa. oo waa maxay? waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaanan wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaanan. 7 jeer ayaa qur-aanka ma garanaysaa wabilwaalidayni ixsaanan, 7 goor bay ku soo aroortay qur-aanka. marka waxa weeyaan intaasoo dhan waxa ilaah an ishkur lii waliwaalidayka, igu shukri aniga waalidkaana ku shukri. marka waxa weeyaan mar haddii aad ilaahay masalanba ku abuuray, ilaahay baan caabudaya, waalidkiina waa caasi kuu socon mayso. ilaa waalidkaan baari u noqonaya, ilaahayna waan caasinayaa kuu socon mayso. marka labadaada masalanba idaaco waxa weeyaan waa mutalaazimaan, inaad waalidka baari u noqotid iyo inaad ilaahay caabudid. labadaasi ma kala haraan, sida soonka iyo sekadu aysan u kala harin ayaa labadaasi kala harin. marka waxa weeyaan min qofkii waalidkii haleela oo waalidkii soo gaara oo aan sababtood jannada ku gelin, ilaahay naarta ha ku fogeeyo buu yidhi, hana geliyo. aamiin baan idhi buu yidhi. taas waa midda labaad weeyaan. midda saddexaad waxa rasuul malaku jibriil baa duceeyey. wuxuu yidhi qofkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtaada lagu xuso oo maxamed calayhi salaatu wasalaam nabiyuna sala allahu calayhi wasalam rasuulullahi sala allahu calayh, qofkii masalanba intaa maqla oo aan kugu sallin asagana naarta allaha ku fogeeye. sidaas ayuu yidhi, aniguna aamiin baan idhi buu yidhi. marka waxaa la doonayaa markaad maqashid nebiga salligiisa, nebiga magaciisa calayhi salaatu wasalaam inaad ku sallisid baa la doonayaa. maxaa yeelay rasuulku wuxuu yidhi man sallaa calayhi sala allahu calayhi cashra,
هل مرقف كليه يوصل لي إلهي طبعا قرب وصل لنا يصل لي إلهي ومعي وقدم بداف والرحمة وحويا وجنة أول جليو وحويا ما أنا نقدر كايد وادعو مثلا بسلق يوم وادعو أرد عينينه لكن سلق مثلا بإلهي دعاء مثلا بسلق إلهي وحويا والرحمة يقدم بداف ويا مغفرة ويا marka waxaan doonayaa bisha Ramadaan baan ugu soo fool leh bisha Ramadaan inaan soo dhaweyno oo waxyaalaha aan ku soo dhaweynayna maxaa kamid ah horta waxa weeyaan waa soon inaan soono weeyaan oo hadii waaba Ilaahay baa nagu waajibiyay oo waa rukn min arkaan al-islaam oo Ilaahay masala rasuulkeenu wuxuu leeyahay buniya al-islaam ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استدعى إليه سبيلا أنت مثلا بحوية وركن من أركان الإسلام مركز ركن من أركان الإسلام إن بدنا واجب بين وقتها ومثلا بفرض بين وقتها إن بدنا وفعل قفك كرويا أنت أنكرنا وأنكهل دونا أحكامتي لأنك أي سؤال الله من دونا سؤال حسن كجواب دونا مركز إن شاء الله أحكامتي لنا وكجواب دونا ما عنينا مثلا بخطبنا كل يرادو ما أنت وحن دوني ينا كتاب كان حوجان مثلا بالله اللي يرادو كتاب جوال الجوجي أديكنا وحي سؤال عاد حيستان وسؤال قبطان السؤال ديسان أو كسر سن رمضان كسر سن رمضان كأحكام بوليه هاي أحكام تسوى حكم ده وحويا إلى هاي بوليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوموا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون انتاس آياتها أنا أغريي وحويا وأحكام الصوم هي صومك وحال وحي اللي يسكربي هي واجباتك انت سدو واجبها أي آياتها سنو شيئا إلى مثلا ماشي قدام بيسا إلى ماشي يعني كتب عليكم الصيام وهذا يكفر ديالهم إلى إليه ماشي وحال كيسا صوم إنه هي عبادة قديمة إنه هي عبادة قديمة إنه هي مركز اللغة وحال ويرا صوم كالإمساك عن الشيء وحوال أفقد حرات وحبات كعامستي وحبات الإمساك باليرة وحبات كعامستي والأفقد كحرتي مركز وحوي شرعي كان اصطلاح وشرعي وحاليرة هذا وحويان الإمساك عن الدعام والشراب والشهوات يعني اللقاح أفعرته منتظر يبيها وحل عبيه هي شهوة مثلا بحنك هي حاسيسو إن يسمى مالنتا رمضان يسوتين أيام مثلا بالصوم مثلا بشرع يسوي هاي إن لقى أفعرته أنت هداد سميسين وحويا وار صومتي أو هدك صومتي عمتدي كصومتي عبيتانكي كسوانتي مقرنسة شهودي وحاسقا قومتيكر حاسقي يسمتيكر عنكي لكن محام مقرنسة ميشا حدي آدم عرب كإلالي وآدم قعدت إلالي وآدم عندها إلالي وآدم إلالي وحيالها كلمة مقرنسة سوم كاسو محوكوت وحو تريا مجيرو حدي آدم مقرنسة عمتدي كسوانتي عبيتانكي كسوانتي شهودادي لكن سومك وحمكوتري حدي آدم عرب كإلاشا وآدم حنت كإلالي وآدم بنت كإلالي وآدم دتك إسكندركي سينا مماذا كإلالي وآدم لغوي هذا الكيس الصعودة أو عن شوكسي قال حين آدم كإلالي دد واحد الكيس أنت حد لي أو واحد لي أنا آدم قرنين دد أنت حد لي
وواحد يقول ليان أنا ما كان يسأل أوجين إن لقرية إن كلام ما أوجين يعني وحويان هل كان لو ملك بصار لو ده ملك وحويان رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لو ده ملك بقرية بنوح قرية وحو وناكسب من نوح قرية وحو مثلا عن خير كنية فائدة العين marka waxa weeyaan dad hadaad xataa aadan been sheegin oo aadan dad xaman oo aadan misalan badbi gelin malagii baa daalisay oo aad waxa ku daalisay waxa faa'iido leh ku daalisay marka waxa dambi baa ugu qoraya dambi bay noqonaya walladina hum 'an al-laqwi ma'rudun ilayhi waxa weeyaan wuxuu ilaah amaanaya muuminiinta oo muuminiina dadka laqwi ka jeesto oo aan eegin dadka laqwiga sameynaya wa idha marru bil laqwi marru kiraman waxa weeyaan markii ay soo maraan dad xumaan sameynaya laqwi sameynaya fadhi ku dirar fadhiya jaraysanaya turbaya markay arkaan waxa weeyaan saasay u maraan markaasay salaam yiraahdaan ma ay mana la fariistaan mana la istaagaan mana la joogsadaan marka waxa weeyaan wa idha marru bil laqwi marru kiraman sidaasay u marayaan wa idha khadabahum al jahiluna qalu salaman hatta haday aayaan iyo haday wax ka sheegaan iyo haday mid kala uma siiyaan marka dadka noocaasa marka waxa la doonayaa in waxa soo dhan laga afaystaa la doonayaa oo carabkaaga aad ka xirtid beenta ka xirtid oo aadan been sheegin oo aad ka xirtid magaranaysaa namiimada aadan dad isku dirin oo aad ka xirtid xanta aad ka ilaalisid hadalka iska socdana aad iska ilaalisid oo inta soconaya indhahaaga waa inaad ilaalisid dhagahaaga ilaalisid oo ku dhageysan been iyo balaayo aad ku dhageysan iyo xan indhaha aad ilaalisid oo waxa ay suuqa marayo oo balaayada aad indhahaaga ka laabatid qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum ila ilayhi dadka mu'miniinta waxa ku tiraahdaa nabi maxamedow war indhihiina laaba farjigiina xifdiya oo zina ka xifdiya indhaha ayaa ka horeeya farjiga ogow yani ma aha yani misalan hazinaysan yani ma aha zinadu kaliya ma aha inaad ninkiyo naagtu isu tagaan ma aha ninkiyo gabadhu inay isu tagaan kaliya ma aha indhihi ayaa waxay ka horeeyaan farjiga ka horeeya wa yahfadhu furujahum haweenkiina maxaa la yiri waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna ayagiina waxa la yiri indhahoodana halaabeen farjigoodana ha xifdiyeen siinado dharkoodana ha qaateen oo masala baxas astureen baa la yiri dharkoodana ha qaateen baa la yiri marka dadkii masala sidaas ah marka carabkii ayaa masala laga doonaya in laga soomo gacmihii laga soomo xubnihii laga soomo rasuulku wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع دعامه وشرابه أفضل حدوثا هذا الكبينتا إيا اللغوة إيا النميمة إيا وحل الشيء إيا حدوثا فرحة كقاد إنه سنده إسكدين إيا بيانتا إيا شهادة السور وحا حدوثا نافن إلى هيدن تقدن كمال هدو عنتظر إنه كسومي إيا إنه عبي إيا إنه مثلا بأوشه وحبوتي إلى هي وحاجه كليا مجرد فليس لله حاجة من أن يدع دعامه إلى هيدن كمال إنه راشنك كتبه إنه بيها كتبه إنه كتبه حاسكيسة إلى هيدن كليا مجرد محيا لا سون كيسي وحبك مجرام ويا سون كيسي وحبك مجرام وحبك مهل إلا العطش أم بوكي هلاي والجوع يقاجو وحكي لك ما وسنيلي marka waxa la doonayaa in la ilaaliyo carabka la ilaaliyo fasalan waxa misalan cibaadadan waa cibaada qadiima oo ummadii hore oo dhan lagu waajibiyay kama kutiba ala alladina min qablikum ya sidii loogu waajibiyay nasaara lagu waajibiyay nasaara waxa la yiri waxa lagu waajibiyay bisha ramadaan ba waxa ku soo beegantay waqti kulayl ah oo misalan ama waqti qabow ku soo beegantay markaas ay yiraahdeen war waqtigan ma soo makareen aan arinta bedelo oo markaan maxaan u bedelaa waxaan u bedelaynaa waqti qabow rabiica yani waqti aan kulaylna ahayn qabowna ahayn aan u bedelo si aan dambiga uga baxnana aan konton ka dhigna meeshii 30 ahayd meeshii 30 ka ahayd aan konton ka dhignaa leeyahay waxa weeye misalan si aan dambiga uga dhex baxno oo aan dambiga uga dabaalano aan galay waxa weeye bedelkii misalan aan bedelay aan 20 ku daro oo aan konton ka dhigno sidaas ayaguna sameyn jireen oo saahayeen waxa weeyaan hadda wali waa Soomaal laakiin anaga amxaarada noo dhaweydo waxa ka soo min jireen Soomaal waxyaalaha hilibka iyo waxyaalahaas ka soo min jireen Soomaal ya onta xoolay ka soo min jireen marka waa adu hadde waa ayagaas ugu dhow laakiin kuwaan kale ma oga waxa soo waa hore laga tagay laakiin ayagaas ugu dhow amxaarada iyo
dadkaasaa ugu dhow diinta ma garanaysaa diin masiixigii weli ugu dhow marka waxa weeyaan dadkii ummadihii horena inay waajib ku ahayd baa ilaahay noo sheegay ilaahay wuxuu noo sheegay inuu yahay ramadaanku sabab xusuuli taqwa taqwada ilaah ka cabsiga sababta ku gaarsiinaysa inuu yahay yaa sababta ku gaarsiinaysa ilaahay cabsidiisa inuu ramadaanku yahay baa ilaahay noo sheegay la'allakum tattaqun yani la'alla markii ay tahay dadka kale ka timaad waxa la yiraahdaa waa li rajaa weeyaan laakiin haday sunnada iyo quraanka waxa weeyaan waa li tahqiiq weeyaan xaqiiqo weeyaan waxa xaqiiqo ku tihiin inaad ilaahay ka cabsataan mar hadaad soomkaas soomtaan ilaahay wuxuu waajibiyay أياما بالين أيامات سومي بالي معدودات أو ترسل وأيام وامحي وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أيام أهل السومية وبشهر رمضان وإله القرآن كسود دجية بشهر سهل السومية وحكى بدن ماهن أنت وحكى أو كسوهر وصوم النبي محمد عليه الصلاة والسلام أصحابته وحي إلى مركي ومدينة يمين وحو أركي عاشور مثلا بيهود أو سومي مثلا مالنت عاشورة أيو صومي مثلا موية مالنت تيسوع أيو صومي هي سدح مع الموضوع ومقرنسة وأي مثلا بيل والبابا وما كسيو من جري مركا وبيل والبابا سدح مع الموت كسيو من جري مركا وحويا تاس ولا نسقي مركا وحال واجبي وفرض لقدقي بشهر رمضان إلا صوم صدق كذا لا صوم أما سقالي لباتن كذا لا صوم أيام فرض لقدقي وإلهي وفرض إلى أياما معدودات أيامها ترسني وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن marka ummaddu waxa weeyaan way qaybsan tahay oo waxa weeyaan ninkii kari kara oo misalba soonka kari kara ha sooma baaleeyay laakiin midkii aan kari karin maxaa la sameeynaya qof baa misalba wuxuu yahay musaafir safarka uu ku dhibtoonaya waa safar aad iyo aad u dheer uu ku dhibtoonaya oo mashaqo iyo dib uu dareemaya waxa weeyaan qofkaas ma soomaya mase waa afuraya marka ilaahay wuxuu misalba ilaahay faman kaana minkum mariidan aw ala safar ilaahi ama waa jiraya qofkaan jiradii marka waa la kala qaaday waxa weeyaan qolada daahiriyad waxay yiraahdeen marba hadii soon la yiri faman kaana minkum mariidan aw ala safar hadii la yiri daahiriyada iyo wala muslim ibrahim asr waxa la yiri waa magac mar hadii hada gurigaaga ka baxdid safar baata waa safarkaas ama ha ku dhibo ama yuusan ku dhibine waxa weeyaan waad afuraysaa bileeyay أما مثلا بهذا جذنتهاي عندي فر لقاهايو وأفوري بيليه أما إلك لقاهايو جوس لقاهايو وأفوري بيليه لكن أئمة مثلا أئمة الأربعة أو مثلا بشافعي أو حنبلي أو مثلا أبي حنيفة أو مالكي جمهور العلماء وحويا صوم كاس وإنه يهاي أدو أفوريسا متكو دبا يحمو يهاي دي أدسون دباتكو كيني متكو مقارنيسا أدو سفر كأدو أفوريسا وإنه يسفر دباتكيني كارو مثلا بحوغا أدك أو كدبا يحمو يهاي مركا قفكي مثلا سفر أما قفكي جرن ها أفورا ليري وأيام الدم حقا ليبا ليري أيام الدم بهسوعني جردي من كلا قاضينا جرد والله mid waxa weeyaan waa jira aad ka biskoonaysid oo markaad ka biskootid waxa laga rabaa soonkii inaad soo celisid baa laga rabaa jirana ka biskoon baysid oo waa sonkor iyo balaa cudur xun oo aan laga biskoon baa jira oo dhibaato badan cudurrada xun oo dhib ka badan ilaahay wuxuu yiri مثلا وحويان ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كو ان كرين او اي مشغله كنتهاي شيخ كبير كودغ كبير يهوي اسلام تدعد ويله اي قفك عادي اد جيران وجيراديسو ايسن دوراهين وان كدووبين waxa la yiri مثلا بفدية طعام مسكين qof miskiin ah quudiyaan baa la yiri fidyadaas waa mud weeyaan laakiin waxa la doonayaa in si adigana sadaqa ay kugu noqoto inaad miskiinka afurisid baa la doonayaa hada xogaa raashin oo misagaasiisid waxa laga yaabaa inaysan waxba u tarin oo مثلا wax ku ilaantaba waayo marka adigu wixii ma garanaysaa asaga oo maalinta anfacayo wax taraya oo afurinaya oo qada ugu cashad ugu filan ma ugu filan afur ugu filan inaad siisid baa la doonayaa marka waxa weey fidyatu da'aam miskiin maalin walba mud buu bixinaya maalin walba waxa weey qof buu afurinaya qof sooman ayuu afurinaya ajar kalu leeyahay man afdara saa'iman falahu ajru مثلا waxa weey qof haduu qof sooman afuriyo ama magaraysa ha soomanaad ama uu soomanaan qof sooman haduu afuriyo waxa weey wuxuu leeyahay ajarkiisi oo kalu leeyahay asagoo kii sooman مثلا bakii aan afuriyana aan waxba laga nusqaamin
ayuu ajarkiisii oo kale leeyahay marka waxaa la doonayaa in laga faa'iidaysto oo ma garanaysaa waxa weeyaan qofkii jirada noocaasa qabay oo daran waxa weeyaan waa afurayaa wuxuu bixinayaa fidyo bixinayaa miskiin buu afurinaya qofkii ma garanaysaa da' oo aan soomi karin miskiin buu afurinaya oo waxa weeyaan fidyo bixinaya qofkii islaantii da' iyaduna waa sidoo kale marka waxaa la doonayaa dadkaas ayagu nooca way jiradu waa nooca labadaas ay u kala qaybsan tahay waxaa jirta masalan gabadhu haddii ay xaamilo tahay oo ay nafteeda u baqdo istiraahdo maanta naftaa ku qabanaysa haddii aad soonkaan wadid ma xajin kartid inay afurto markii ay dhashana ay qadayso markii ilaahay kala keeno inay qadayso ayaa u bannaan laakiin hadday tiraahdo ilmaha arbaa wax gaaraan oo caloosha ku jira oo dhib gaaraan waxa weeyaan inay qalwaana way afuri laakiin way qalana way la imanaysaa fidyana way bixinaysaa qof miskiin ay cunto siinaysaa hadday ma garanaysaa umul tahay oo dhashay oo ay ilma nuujinayso waxaa la doonayaa inay ilmahaas haddii ay iyadu nafteeda u baqday waxa weeyaan inay soon kaliyaa lagu leeyahay hadday ilmaha u baqday soon iyo fidye ayaa lagu leeyahay dadka noocaasa ilaahay waa soo istisnooday inay iyagu ma garanaysaa fidye bixi karaan oo soonka waa laga reebaya oo soonku ayaga waajib markaa kuma ahan laakiin qolana way soo celinaysaa qolana soo celin mayso qoladii soo celinaysa waa idiin sheegay waa qofkii jiro caadiya qaba iyo qofkii safaara ama musaafira iyo qofka ma garanaysaa gabadha xaamilada ah iyo qofka gabadha ma garanaysa ilmaha nuujinaysa soonkii way soo celinayaan marka waxa weeyaan laakiin qofka da'da ah iyo dadka da'da ah iyo dadka jiran oo jirada daa'imkaa qaba dadkaasi soo celin mayaan fidye ayay bixinayaan taa ma la garanayaa taa ya waadix maaha haye marka waxa weeyaan ya fidyada maalintii kaa tagtaba hal qof baa afurinaysa maalintii kaa tagta maalintaad soomi lahayd oo aada soomin ayaad qof afurinaysa qofkaas hadee waxa weeyaan beledku siduu kale yahay qaar baa Soomaaliya hadii maxaa ku filan qofka afurkiisa halkan maxaa ku filan laakiin waxaa laga yaabaa in Soomaaliya ugu dhib badan tahay uguna afur sahlan tahay ya $3 iyo waxba ku filan qofka Soomaaliya jooga oo la furin kara inta ku bixin kartaa lacag baad ku bixin kartaa meedu inaad lacag ku bixisaa fiican maxaa yeelay qofkaan magaraysa afuraya inuu masalan waxna ku gato wixiisii uu ka soo qabayso ayaa loo qaatay laakiin haddaad siisid masalan makiintaal galeey masalan makiintaalkii galeey ha tiraad bishaas oo dhan cun wuxuu ku idaamanaya ya marka asagu ha maamusho waxaa la marka lacag u sii asagu in iidaana kala baxo in cuntaha kala baxo intuu doono dhar xasiisto marka waxaa la doonayaa inaad sidaas u samaysid baa la doonayaa marka su'aalihiinan hadda insha Allah saas u soo ما يوانا مي أنا وادي الله يدمو مركز سؤالين قبلها هدي أي صوت دران وان كويرش بدو دران هدي أي صوت دران وان وجه جوابين سؤالها هدي الله يدمو وحين رمضان تبصر خليفة يسوع خليفة وقف بعد جن فيديو جردو مسوم لكن هو تفكر سلام تراويح بتفكر أفكار سلام يعني أقول يعني مسومة يعني جدا أول مسومة سلام تراويح بسم الله الرحمن الرحيم صلاة التراويح اللي هو تصوم وسكو محرة صلاة وحوية صوم هو جوردي ساسو وحوية وركن من أركان الإسلام وجوريه صلاة من وحوية وصلاة من كصلاته وسنة هي فرض وهي فرض أو مجانس فرض أو صلاة هذا أما صون هذا أما حج هذا وحي الجبولية هي وفرض وحويان ووحى مجانس لقاد دون أو لقاد البي هدي عاد مثلا بالتي ما أجر هي حسنات بتكه ليس لكن هدي أتيتكتين ولو عقاب يا وحي فرض أو لو فرض يدي هذا التي ما أجر هي حسنات نواتيه لي فرض كي اللي يقولها أنا واد بدتي وحويان تاس وحويان وكاد عفرض كاس حسنات نواد لنا وحي السنة وحويان حسنات بالوصين هي لكن مثلا بالرجوع على مهدد كتير مركز تراويح وحي كم بتا سنة دي كم بتاي هذا التراويح تكن إلى هيك ويدين ما يمحل تكن ويدين لكن هذه فائدة كوتو وحبا كام مكان هذه يا زيادة يا أرجع مقرن
وزيادة ورسيد ما قرنسا واحد يسكو حرن ما صوم كي ترى واحد يسكو حرن ما هاي واحد سؤالك أنا رجع شخصي أفرح أنا وأفرح دائما أنا دائما سؤال نعم سيدا أنا خلاص فرما كلها اللي جزء حنا خلوا بدنا ناس كتير ويا مية خلوا هدي أنا صوم هدي بين الصوم لكن وهذا يبغى إنه يوم كلام بدو في جد وقت أو كده وقتك كم شيء يجي ما يمشون حقوق أساسية هيك بيحصل لكن هذا وقت وقت مش شيء أساسي إن أفرت أي كون أجر بدن إن أفرت يا كو أجر بدن وعاد مقارنة سنتين أفرت أتفدي يسكن بحسي سؤال شو هم الحين سؤال شو حلي يا عبد الفتاح وأنا معنا بس بقول لك ما مغلوب يا ما بقى يعني أنا بدون كعلنا وفي قد قاعدك أيوة يريا وأنا مغلوب ودقنا marka waxa weeyaan waxaan ugu celinayaa waa nin aad u cibaado jecel asagu nin cibaado jecel anagu uga marqaati furayna weey marka wuxuu jirru qabaa kaliyaha la sifeeyaa sonkor baa la qaba qofkan sonkor buu qabaa jirro waxa weeye kaliyaha laga sifeeyo asagu inuu isdhibo doonaya inuu isdhibo ayuu doonaya laakiin waxa weeyaan dhakhtarkii wuxuu leeyahay war ma soobi kartid soonka iska daa annaguna dhakhtarka waa ka shisheynaa waxaan leenahay inaad iska dayso ayaa kuu ajar badan inaad iska dayso ruqsada ilaahay qaadatid ayaa kuu ajar badan oo kuu khayr badan maxaa yeelay marba haddii dhib kuu iman hayo xataa haddaad dawo qaadatid oo laleisleeyahay cudurkaan xoogaa waa sii fogaanaya haddii maganaysaa dawada la joojiyo waxa weeye inaad afurta ayaa kuu khayr badan marka adigu afur ayaan ku leenahay waxa weeyaan dembina ma lihid dembi iska daaya ajar baad ka helaysaa siyaada الشيخ أختي عن سمك يوم مالتي همين كواير أنا ولدت هذا إلى وارون إنه همين كم يقول والله إلى لحسة دوا ساوي لحسة هبين كده همين كورة بس وليه دوا ساعة أفرق هذا شوف أنا يعني ما نقول يجاب يرى مغرب كي صلاة الصبح أنتم بحسكم وهذا هو بس 6 ساعات ما أنت ولا حس هو شو ساعة حاجة ساعة وعكير مركب ملاي إذا كنت لما شفته سكدري يانكيو بلا عن قروح دور دعين بجت أي سيري يا ضد كماشة كله بحيث صوت dadka meesha u nool waxay sameynayaan haddii ay magaranaysaa sidaaba tahay xadiiskii magaranaysaa dijaal ha qaateen baan oran lahaa oo rasuulku yiri magaranaysaa masalan maalintiisu waxay la eg tahay yani waxa weeyaan maalin 40 buu joogayaa maalin waxay la eg tahay masalan sanay la eg tahay maalin bil bay la eg tahay maalin waxay la eg tahay masalan maalmaha caadiga maxaa sameynaa baa rasuulka ilaahay marka wuxuu yiri وقدر بوير صلاة وقت يد وقدر بوير مركز صلاة دي حسب مركز وقدر بوير وقت جي وقدر مركز لكن هدي صوم إن صلاة دا صوم كلام وياه محير هذا مرحني بدعين مركز إن أدو أي حديث الدجال قاطع أنا واحد يقرأ لو ده ما قرأنا ومثلا وقدرانه صوم وقت جي حبين كنا وقت قنديان ما نتين وقت قنديان هذا قرآن لكن هذا قرآن دعيسه أين الصوم بحيسه يعني وحويان كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل يا تاسع ماشى تعالى يا هدي قرحة دعاء يسوي هدي يسندعي لكن حديث كي دجال قاطع رملا يا شيخ القاهرة واحد شفته من القلعة أي وأنا أقول عن أختي وغيرها لا أنت أي نصح مرة رمضان واحد دون مسكين سنة مفتاح هو كل ما يرى ليش ما يسياش واحد وحكد عودة كان رمضان نظر oo dhacday aan ogaa xaafadeenan ba ka dhacayba masaajidada soo muuqdo haday u bataan 2 kiiloomitir ama 1 kiiloomitir isu jira ya
أفرك وش وقت ولا أفرا أو دب مكبا سحورته مركي تمادي ساعات الصباح saac يجي خلا تقالوا وحاول مساج كذا عن شغله أنه سحور اللي هو تكون صلاة الصباح يعني قول أولي سحور با أما مركز سحورتي بلابس أنه تكون صلاة الصباح يقولوا تيجي سواء سمو قدام مساج فوق ما أهرنت النوع حاسس شيء مغالطة ما يسكون يعني بتاعنا بكيلومتر سجل هاي لا عايزه ما أنا ما ودي عربة حتى واحد من راح سامي رجال قالوا واحد لي باللغة أنا وقت قالنا أفرينا وشعرنا فرضا قالنا واحد لي ما أنا مشاكل وحنا قاضنا عنكم قالنا أنت أساس عليا أهرنت النوع حاسس شيء أديكم من مساجد هايستاتيين ومساجد من بمركبته كذا ومن بمرأة لكن أنا ما بنقانو مسجدنا ما نقانو ماشي عندي جنا هذا وحويان مساجد بقي ومال وقت مساجد لو أفرعي وقت الوصول حرتي ما بنقانو أنا وحنا في سنة مجالس إسلامي جنب إسلامي جنب مركو الله أكبر إلى هذا متمر ترافق جلين مرك أنتوا سن مجالس مركا إسلامنا هو سولو يعني سحورت أيام باللون marka waxa weeyaan waa waxaad fiirinaysaa waxa weeyaan waa oo maganaysaa thumma kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayd al-abyad min al-khayd al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl ayada qaalo marka waxa weeyaan waxa laga doonayaa inaad ama hakala horeeyaan afurkooda suxuurtoodu ama hakala dambeeyeen shardi waxa inaysan afurka kala dambeeyeen laakiin suxuurta ama hakala dambeeyeen ama hakala horeeyeen مثلا بزيد بن ثابت بالويديه وحيري وحان رسولنا النبي محمد قال لا افضل عليه لا سحورنا عليه الصلاه والسلام مركز لي ما كان حاقد حي بين السحور واقامه الصلاه ما حاقد حي بالي مركز وحيري قدر 50 ايه كنت ايه ان لا اخريه اي ود حي سواء 8 دقيقه او 5 دقيقه 8 دقيقه وحلمده قدر 50 ايه كنت ايه دود القران كم ان لا اخريه ayaa u dhaxaysay buu yiri markii aan suxuuranay iyo markii aan salaad loo soo taagay intiga dhaxaysay صلاة دي شو هو يتكلم ولا أنا سحورني سحورني بعد الصلاة سوق السير غنية يا حلقة يا بني مدلع غنية نجي أحمد بس ما اسمه مقلب بس كبير التحرير عجيب مدلع غنية كم ليش كم مسجدين كم وحا واحد ما يسوي ما يسوي صلاة قلب قلب أنا بالصبح وحا كل حاجة حاسة يبقى هذا صقلت معها فكشده قفكم المشكلة ما هو ماشي بيلك صقلت ده وحا يعني صباح هذا باللوج هذا يعني أنت سلام بيجي تقول ما مرد كجلك أنا كي هل كان ما أعرف وأتشغل هذا النوع ويرعب صلاة الصبح صلاة الصبح ما حاول مدة ما كان يسوي من كمان إيشيان كان هل كان محاول حياة ويرانا بس عادو هل كان أنت عسل كنت كذا أيام حقه وحن تجا ما كان يسوي عسل كم حلوة وحن كذا الصبح الفجر الفجر كان لا عسل كم أوجه أيوة حيث كنا مين لهذا هم صحيح إن في الوحن تجا أيوة ما كان يسوي لنا آدم من ما كان يسوي ما إذا هذا سفر يوم أيوة وحن ما لنا يسوي أيوة قبلها شيخ سواء يا ده وحفي هذا كله شيء رجع جزاك الله خير السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم